horta waa salaamayaa dhegaystayaashaada waxaan ka tacsiyeynayaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun qoyskii reer elman iyo maamo fartuun iyo dhammaan muxuu ahaa dadka soomaaliyeed gabar aad u qiimo badan ee ahayd jannada ilaahay ha ka waraabiyo horta waxa waaye qaabka loo wajahay muxuu ahaa baarista usoo laaban doona qaladka ugu horreeyey cornel marka hore sawir guud naga sii iwad may sawir guud horta waxa waaye waxa aan maaragtay sarkaal aan kala sheekaysto oo booliiska oo sarkaal saraa ayaa waxa uu ii sheegay in maaragtay gabadha ay ka soo baxday shir ka dhacay maxaa SKA marka dadka Soomaaliyeed waxay isku qaldaan xalana iyo abisiyoon isku qaldaan waa gartay marka SKA waxa ay ku taalaa runway-ga bartamihiisa ay ku taalaa dhinacyadana waxaa ka xiga muxuu ahaa hoteelka uu leeyahay wasiirka amniga Ducaale iyo muxuu ahaa iyo xarun kaleeto ay leeyihiin muxuu ahaa taliska nabad sugidda Soomaaliyeed gabadha markay meesha ay ka soo baxday sidoo sarkaalka ii sheegay gaariga waxa uu u soo jihaystay oo u soo dhaqaaqay dhinaca airport-ka u soo dhaqaaqay xabadana waxa ay kaga timid xagga dambe ayay kaga timid marka awaalkan la isla dhaxmaraya oo la leeyahay meel 4 kilomitir u jirto oo airport-kii maxaa meesha la yiraahdo control-kii afgooye oo ciidamo ay maartay ku dagaalamayeen ayaa maartay xabadda ay ka timid weeftaa waa 4 kilomitir gaariga meesha uu marayo noohada markaa noo haysarnad xagga dambe ka saarneed xabadda waxa ay kaga timid muxuu ahay dhinaca gadaal ay kaga timid marka xabada ka soo dhacay control-ka oo jihada ama directionka xabadda ay u dhaqaaqi karta ay tahay eastiga ay u dhaqaaqi karta ama bariga waxa macquul ahayn oo aan isqabanaynin xabadaha marka booliiska iyo nabad sugidda ay haystaan ma kuwa oo muxuu ahaa inay soo wareegaan oo directionka bedeshamiya marka taas marnaba macquul ma ahan xabadda 4 kilomitir ka timid xabadda gabadha gadaasheeda ayay ka soo dhacday meel aan qiyaasi kara haddii aan maaragtay aan oo ku aadan muxuu ahaa dhinaca abisiyoon ku aadan ayay ka soo dhacday xabadda xagga dambe ayay kaga timid marka qaldaad ka dhacay waxa waaye evidence-ga markii la raadinayo caddeemaha markii la ha ii wad cornel markii caddeemaha la raadinayo meesha falka uu ka dhaco fal dambiyeedka uu ka dhaco wax walba oo aagaas maraya muxuu ahay in la xiro waayo laakiin qaladka dhaca waxa waaye gaarigii gabadhii ayaa lagula cararay isbitaalka lala aaday marka waxaba dhumayo in caddeymihii ay tix raacaan booliiska ama cidda kaleeto muxuu ahay baaritaan la samaynayso ama Amazon ha noqoto ama Bancraft ha noqoto baabuurka haddii meesha laga dhaqaajiyo directionkii ay xabadda ay ka timid way lumaysaa marka qaldaadka oo muxuu ahay ugu weyn oo dhacay waa kaasoo aysan maaragtay dadka Soomaaliyeed wacyigelin aysan u lahayn anigoo waxa aan soo gaaray 60meeyadii in maaragtay radio Muqdisho oo la barnaamij oo booliiska uu leeyahay waliba la soo daayo xilliga maaragtay oo dadka ay wada joogaan guryahooda oo dadka shacabkana lagu wacyigeliyo shuruucda waxay tahana la baro marka evidence-gi wayba luntayba marka taliyaha booliiska markii uu leeyahay baaritaan iyo qubaro ayaan u xil saaray qubarada su'aasha la isweydiinaya waa xaggee ka bilaabayaan baaritaanka marka caddayntu waa dhuntaad leeda caddayntu way ku luntay gabadhi baabuurkii xabadday kula dhacday waaba laga dhaqaajiyey meesha cornel markaad eegto waad aragtay xabaddii gabadha ku dhacday waa la sawiray oo waa la baahiyey meesha ay gabadha lagu dilana waa meel aanay falalka noocaana weli ka dhicin inta la ogyahay arrintan sidee ku dhici kartaa aad is leedahay ma horta xabadda waxay ahayd sawirka waan arkay aniga haddiiba tii gujirkeeda laga soo saaray haddii ay tahay xabadda waxay ahayd 50 caliber ayay ahayd markaan noocyadeeda aan fiiriyey oo aan baaritaan ku sameeyey waxaan ogaaday in xabaddaani ay western ay tahay oo xabadaha ruushka aysan ahayn ama aysan ahayn muxuu ahay qorigan oo dabajeexa la yiraahdo oo samee marka xabaddan waa 50 caliber dhinaca ay ka soo dhacdayna kullayba waxa waa dhinaca ay joogaan dadka security-ga oo maaragtay la shaqeeya muxuu ahay hay'adaha meesha degan ama Amazon marka xabadda nooceeda haddii booliiska ay hayaan
waa la ogaan karaa heybteeda iyo meesha ay ka timid iyo serial numberka iyo ciddii markaas mas-uulka ka eedo xabaddaasi maaragtay haayay waa la ogaan karaa laakiinse bilowgii oo evidencega oo ahaa in maaragtay taliska booliiska oo ama muxuu ahaa saldhigga booliiska oo airportka waxay inuu meesha xiro gaarigana meeshaan laga dhaqaajin marka evidencega ma garanayo meesha oo taliyaha booliiska uu leeyahay saaray qubaraan u saaray meel cidlaama wax ka bilaaban cornele ma kula tahay in ay soomaaliya yaallaan qoryahan meel fog wax ka dili kara diiradda leh mararka qaarna lagu ugaarsan karo dadka bulshada muhiimka u ah waddankayna muddo dheer oo dayacnaa wasaaradda amniga iyo muxuu ahay hay-adaha amnigana uma tira koobno qoryaha waddanka soo galay iyo sida ay ku soo galaan qoryo badan oo noocaas oo maaragtay oo sharp shooters way yaalliin waddanka laakiinse su-aasha waxa waaye ciidankayna ma haystaa u malayn maayo inay maaragtay ciidamadayna ay wada haystaan qoryo oo sharp shooter waayo cunaqabateynaaba saaranba marka haddii ay habaddii ay ahayd sharp shooter haddii ay ahayd waa mid aan ka baxsanayn xalana gudihiisa aan ka baxsanayn iyo agagaarkiisa waay sidee adiga loo heli karaa ayaad is leedahay raadka dhacdadan ama dadkii ka dambeeyey mise la heli karaa labadaba ya midaan aan ka baxsanayn muxuu ahaa cornele agagaarkiisa haddiiba oo qoriga noocaas uu yaalla waddanka wuuna yaallaa foorhubaal waa weyaa cornele sidee loo heli karaa raadka arrintan aad is leedahay raadka arrintan waxaa loo heli karaa gumaca gabadha jirkeeda laga soo saaray serial number uu leeyahay marka heybta iyo muxuu manufacturing ama warshadii soo samaysa waa la helayaa xilligii la soo iibiyey iyo wax kasta manifesta ayay ku qoran yihiin laakiinse 9 bilood oo ugu dambeysay waa tii ay maaragtay monitoring groupka ay aad maaragtay uga ashtakoodeen oo UN-ka ay geeyeen Security Council-ka in ay dowladda Soomaaliya marnaba ay u soo gudbinin wada shaqayna aysan ka siinin maxaa hubka iyo rasaasta waddanka soo galo marka waxyaabo badan oo isdiidana maaragtay imaanayo waay ay dowladda Soomaaliya ay u diiday in maaragtay ama la taliyaha maxaa amniga qaranka oo maaragtay uu diiday in maxaa lala xisaabtamo rasaasta iyo hubka waddanka soo galo si kasta badan 9 bilood waa muddo fog oo soo gali karaan waa waddanka waay ugu dambeyn cornel macow aqoon ahaan iyo awood ahaan ma is leedahay dowladdu waxa ay ka soo bixi kartaa baaritaankan oo ay ka keeni kartaa xog la isku haleyn karo ama ay soo heli kartaa raadkan khatarta ka dhalan kartase weerarada noocaana maxay tahay horta ma filayo CID-da sidii bari hore lagu yaqaanay waxaa jira muxuu ahay photograph evidence dad oo isla markiiba oo cameraman oo sawir oo meesha soo sawiro oo directionka ay xabadda ka soo dhacday muxuu ahay ka qiyaas qaato oo xabadda gumaceedii iyo muxuu ahay dhinaca ay u leexatay markii muraayadda ay soo gudubtay ka qiyaas qaadan lahay laakiinse maxay baaraan waxa waay gaariga meesha waaba laga dhaqaajiyay ya aqoontaasi ma jirtaa diida way leeyihiin dad aqoontaas u leh oo muddo dheer ka shaqeeyay inay dambiyada noocaas ay baaraan oo weliba maaragtay expert ku ah laakiin si wixii oo dhan dhalinyaro maaragtay oo aan aqoon aan lahayn oo aan loo diyaarin inay xilka noocaas oo amniga ay qabtaan ayaa muxuu ahay meesha dhanba la wareegay oo maaragtay oo xilalkaas loo diiday markaa waa nasiib darro in maaragtay dadka odayaasha ahay weligood CID-da ahay wax baari jiray ay maanta ay ka fara maran yihiin oo bannaanka ay ka taagan yihiin marka ma filayo in maaragtay khatarta ka dhalan karta cornela marka dhacdooyinka noocaana ama weerarada noocaana khatarta ka dhalan karta waxa kaliya oo looga bixi karo waxa waaye in wasaaradda amniga ay maaragtay ay la xisaabtanto dadka security-ga ah oo maaragtay oo ajnabiga ah oo maaragtay shirkadaha ay keenstaan hubka ay haystaan nooca oo yahay ma ka warqabaan maya kama warqabaan waxa waaye airbortkay ka soo dejiyaan waxay la aadaan xarumahooda iyo meeshay degan yihiin ay la aadaan
marka waxa baad u malaynaysaa wasaaradda amniga inay marti ay ka tahay waxa dalkeedu soo galay waxa ka baxay inaysan ka warqabin marka waa loo baahan yahay in maaragtay hubka iyo rasaasta ay soo gelinayaan dadka security-ga waxa bankrafta joogta security-yaal kala nooc ah joogan kuwa soo kireystaa joogan kuwa oo darbiyada saarana joogan waxa dhici karta inay xabad ay ka soo fakatay oo ay maaragtay ay qarinayaan marka baaritaan xoog la ay u baahan tahay iska ku aadan in maaragtay loo baaro Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo sargaal hore ka soo shaqeeyay sirdoonka Soomaaliya oo qadka telefoonka ee Mareykanka igu waramayay